daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Farmaajo iyo wasiir Fawziye oo qaatay talaalka COVID-19 oo shalay la keenay Soomaaliya. Qoor oo maanta ay soo gaaray magaalada Muqdisho. Iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay dhageysiga dacwadda badda Soomaaliya ee maxkamadda ICJ ayaan idiin soo gudbin doonaa. haddii aynu ku bilowno wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Fawziye Abikar Nuur ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee qaata talaalka COVID-19 oo shalay la keenay Soomaaliya. wasiiradda waxay noqotay mas'uulkii ugu horeeyay ee qaata talaalka waana qofkii ugu horeeyay ee geeyga Soomaaliya. Tani waxaa lagu tilmaamay inay dhiirigelinayso isticmaalka talaalkan. sidoo kale waxa ay wasiiradda kadib talaalkeeda ay sheegtay in talaalka uu yahay mid xaqiiqo ah, tijaabooyin badan soo maray hay'adda caafimaadka adduunkana ay tijaabooyin kala duwan iyo khubaro ay u dhiibtay, saas daraadeedna ay tahay dawada mid nadiif ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاضل دمان ميديها ومهتسنتهين تلال كان وقت بدنا لقصو شقيي ولا سو حقيقي والضمادة مجوجين يوروب انتو بدن مجوجين حكدي جليان هسه شيء وحي هي لو تقاس او لوغا او ليري هل حكيو ما aha in la diiday laakiin baaritaan maadaama ay dad ama dad dhinteen ama dad laga arkay calaamado oo xinjirihii ma aragtay oo dhigiyo xinjiroobay waxay ahayd haddana waxaa la sameeyay guddi dadkii ansixinaya talaalka oo ka shaqeynaya WHO ka helayay go aheadka waa la fariistay waxaa la yiri calaamadaha dadkaas u dhifteen looma xiriirin karo AstraZeneca shirkadda waray soo saartay guddigii waa la soo saaray oo WHO annaga waxaana loo xaqiijiyay inuu safe yahay aan isticmaali karno shalay ay timid waadna u jeedaan inaan isku durna waxaan rabnaa ummadda inaan u sheegno dejinno waxaanan safe ahaan idinma horseedayno qof walba nafta waa jecel waxaan rabnaa in bulshada aan badbaadino in bulshada ilaahay ka sokow yani dadaalkana la faray in talaalka kaliya lagu ekaanin afka la xirto la kala dheeraado gacmaha la dhaqdo la is ilaaliyo meelaha ciriiriga la iska ilaaliyo dadka cudurrada raaga iyo dadka waayeelka oo nugul la ilaaliyo taxadarka in la isku wada daro si aan u badbaadno ilaahay hana wada badbaadiyo wasiir magacaygu waa cali xasan cali dadka Soomaaliyeed soo markii la keenay talaalku waxay dalbanayeen in madaxweynaha Soomaaliya oo bilaabo talaalkan si qofku hore lagu daro noqdo si ugu daydaan maxaa diiday in madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama gudoomiyaha golaha shacabka ay bilaabaan talaalkan si dadka ugu daydaan madaxweynaha waa bilaabayay waana arki doontiin sawiradiisa waxaa lagu talaalay xafiiskiisa dadaa loo diray intaanan annaga galin xaafadda ee meesha la isku talaalay wasiir waxaa la soo wariyay in dadka qaar ama qofka marka uu bilaabo oo kale la duro inuu wareerayo labalabana ay u dareemayaan taas maxaa ka jira hadii hadda maxaa dareemaysaa noo sheeg wax zaa'id oo aan dareemayo ma jirto aan ka ahayn cirbadda meeshii dabcan lagu duray marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummadeenna ay qaadato aan ku badbaadno waxaan nahay dad wadan iska tabar yar systemka nidaamkiisa caafimaad oo runtii iska hooseeya kaalmo badan u baahan kan waa ka hortagga iyo daryeelidda dadka Soomaaliyeed marka talaalka waa qaadanaynaa insha Allah ilaahay waan ugu wada badbaadinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada madam Fawziye agaasimayaasha wasaaradda caafimaadka la taliyaasha hay'adaha laga joogo saxaafadda kulligeen waan salaamayaa salaan kadib aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan qayb ka noqono magaalada ugu horeysay oo talaalka lagu daafuro inay noqoto magaalada Muqdisho arrintaas waxaan ugu mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka oo muddo dadaal ugu jirtay sidii loo badbaadin lahaa bulshada ku nool Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho annaga waxay noo tahay farxad iyo ammaan gaar ah inaan maanta isbitaal Martiin soo bandhigayno daafurkii ugu horeeyay qaybna aan ka noqon doono dadka ugu horeeya oo talaalkaas qaato sida agaasimaha uu sheegay 2022 milestone-ka loo yaalo waxaa qof walba inuu talaalkan haysto si free aan u helo waxyaabaha oo leeyahay dhibaato leeyahayna wax ka jira mara waxaan soo certify gareyn oo WHO ani certification aan lahayn wadanka loo keenay lahayn marka arrintaas waxaan rabaa in bulshada laga wacyigiyo wasaaradda si u bilowdeen wacyigelintaas oo sii socon doono anagana qaybteena inaan ka qaadano ilaa yiraahdo intaas aan soo koobi lahaa waa masantiin wasiiradda
wasiiradda wasaaradda caafimaadka madam fawziya, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka, agaasimaha waaxda caafimaadka ee dowladda hoose gobolka banaadir, agaasimayaasha naftood hurayaasha hormuudka ka ah la dagaalanka cudurkan covid. dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib hal sana ka soo wareegtay kayska u horreeyey soomaaliya waxaa laga helay 16 maarch, maantana waa 16 maarch. intaas dadaalkii la waday maanta wuxuu keenay in tallaal aanu helno. tallaalkaasna maanta daafurkiisu yahay. waxaan ummadda Soomaaliyeed ka rajaynaynaa intaas wacyigelin baan wadnay, intaas dadaal la daaweynaya, intaas naf baa la badbaadinaya. maantana ka hortagga cudurka kii ugu weynaa ee yimid oo ah tallaalka. tallaalka dadka dhan waxaan ku boorinaynaa horta inay isduraan. sababta waxa weeye wuxuu siinayaa awood difaac ayuu siinayaa oo cudurkan ka celin karaya. laakiin isla markaas maaha dadku inay hilmaamaan in maaskigii la gashto, in gacmihii la iska dhaqo, in maxaa idhaahdaa la kala fogaado, in meelaha dadku isku badan yihiin aan la tegin. intaasoo dhanna meesha ka bixi mayso. qofku waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu idmo markuu qofkan 2 jeer istallaalo in ay noqoto in qof walba uu helo immunity passport oo u ogolaanaya inuu meelaha la isku yimaado tago, inuu maaskiga dad haddii isla ayagana la tallaalo uu hor joogo uu asna iska siibo, in diyaaradaha adduunka loo kala goosho iyo wixii kaloo tasiilaada oo ka imaan karaya tallaalkaas la qaatay. maanta baasboorkii hore oo lagu safri jiray oo airboortka looga bixi jiray keligiis waxba tiraya. waxa wax tiraya waxay tahay inaad baasboorkan labaadna qaadatid oo caddaynaya inaad 2 jeer istallaasho. walaalayaal horta kalsooni ku qaba tallaalka, kalsooni ku qaba. tallaalka waa tallaal fiican. madax waaweyn isku soo durtay wadamo badanna ingiriiska kale hadda 12 milyan ayaa iska tallaashay, faransiiska kale 5 milyan iska tallaashay. afrika si fiican buu uga socdaa, adduunka si fiican buu uga socdaa. hadda maanta halkaan ku daafuraynaa, soomaalidana waan soo bandhigaynaa. maaha anagu nafteena inaan nacnay, maaha nafteena waa rabnaa. qoys iyo xaas ilmo ayaan leenahay. marka cabsida hadda joojiyo, horaha loo soo baxo. waxaan rajaynayaa Soomaali inta kale oo hartayna in dadka dhan la wada tallaalo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhanka kale goobta maanta talaalka lagu soo bandhigayay ee lagu bilaabay wasiiradda waxaa ka hadlay madaxda caafimaadka isbitaalka Martini, sidoo kale agaasimaha caafimaadka maamulka gobolka Banaadir. dhanka kale waxaa maanta talaalka COVID-19 qaatay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu xoojiyay walwalka ku aadan inay yar tahay feejignaanta shacabka Soomaaliyeed ee cudurkan iyo halistiisa oo sii kordhaysa, iyadoo la fududeysanayo talooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabkeena. mas-uuliyad adag ayaa inaga saaran daryeelka muwaadiniinteena si aan uga hortagno in uu soo rito cudurkan safmarka ee dunida aafeeyey. muhiimadda ugu weyn waa in aan dadaal kasta gelinaa ka hortagga cudurkan, inaga oo xoojinayna tayada iyo adeegyadeena caafimaad. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku bogaadiyay wasaaradda caafimaadka, dhakhaatiirta, kalkaaliyaasha, adeegayaasha iyo guud ahaan bahda caafimaadka dalkeena dadaalka mugga weyn ee ay ku bixinayaan badqabka caafimaad ee shacabka Soomaaliyeed iyagoo ku shaqeynaya duruufo adag. sidoo kale madaxweynaha ayaa ammaanay dadaalka xukuumadda ee ku saabsan ka hortagga cudurkan faafa ee COVID-19. dhanka kalena haddaan eegno, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya asagoo ka soo laabtay safar uu ugu maqnaa dalka Turkiga. Qoorqoor ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. ila ku dhow madaxtooyada Galmudug ayaa warbaahinta u sheegay in Qoorqoor uu ku biiri doono kulamada siyaasadeed ee ka socda magaalada Muqdisho ee doorashooyinka ku saabsan. wararka ayaa sheegaya in uu shirar gaar ah la qaadan doono madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo ka wada hadli doono xaaladda dalka. Galmudug ayaa ka mid ah maamulada taabacsan dowladda federaalka Soomaaliya marka loo eego hanaanka loo wajahayo doorashooyinka 2022. si kastaba socdaalka Qoorqoor ee Muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli ay caasimadda ku sugan yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland, Hirshabelle ee isla markaana la filayo in uu furmo shirka wada tashiga doorashooyinka oo ka dhacaya Tendada Vazioni.